بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba dhegaystayaasha qiimiga iyo qaayaha mudan ee hawada naga dhegaysanayo halkani waa codka soomaalida Finland SSM oo goorahana kale aad uga barateen wararkii viruska corona ee Finland iyo caalamka intiisa kale maanta oo isniina bisha January 4 ay tahay sanadka 2021 hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaagga dalkan Finland ee THL marka magaceeda la soo gaabiyo la yiraahdo ayaa shaaca ka qaaday in viruska corona dalkan Finland maanta laga helay 147 qof taasoo tirada guud ee dadka laga helay viruska corona ee Finland ka dhigaysa 36,919 qof isku darka guud ilaa iyo 38 magaalo oo dalkan Finland ayaa laga helay cudurka waxaana ugu badan meelaha viruska laga helay gobolka Helsinki iyo Uusimaa oo caasimadii hareeraheeda 73 qof ah gobolka Varsinais-Suomi 24 qof iyo gobolka Pohjois-Pohjanmaa oo 11 qof ah magaalooyinka ugu badan ee laga helay tirada viruska ugu badan ayaa sidan soo socota Helsinki 53 Turku 18 Oulu 9 Vantaa 7 qof Espoo 5 qof Lahti 4 qof Jyväskylä 4 qof Tuusula 4 qof Tampere iyo Rovaniemi iyo magaalada la yiraahdo Munamäki min 3 qof Hamina Imatra Vaasa Kerava Kotka oo magaaladiiba laga helay min 2 qof iyo inta kale ee soo hadhay oo min 1 qof laga helay xanuunka viruska corona awgiis waxaa isbitaalka ugu jira 210 qof sida ay sheegtay hay'adda THL taasi oo tiradii shalay 3 qof dheer kuwaasoo 30 qof oo kamidana ay ku jiraan qaybta gargaarka degdega ah hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaagga waxaa kaloo ay shaaca ka qaaday in tirada dhimashadu haatan ay gaartay 565 qof kadib markii ay maanta sheegtay hay'addu in 4 qof oo hor leh ay u dhinteen dalkan Finland viruska corona xaaladda cudurka safmarka ee heerka faafista waxaa weli ku jira gobolada Uusimaa oo caasimadii hareeraheeda Päijät-Häme, Pohjois-Pohjanmaa, Kymenlaakso, Kanta-Häme, Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa, Pieksämäki iyo 2 degmo oo ka tirsan Pohjanmaa oo kala ah Korsnäs iyo Mustasaari waana heerka ugu sarreeya heerkaasi heerka labaad ee karaar qaadashada waxaa ku jira gobolada kala Satakunta, Etelä-Savo, Keski-Suomi, Länsi-Pohjala, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Karjala iyo Pohjois-Karjala iyo magaalada la yiraahdo Pieksämäki sidoo kale heerka ugu hooseeya ee koowaadna waxaa ku jira 4 gobol ee kala ah Itä-Savo, Lappi, Pohjois-Savo iyo Kainu xaaladda guud ee corona ee dalkan Finland marka la eego ilaa iyo haatan tirada laga qaaday saamiga corona waxa ay marayaan 2,495,200 qof dhinaca tirada dadka laga helayna 36,919 qof daryeelka isbitaalka 210 ayaa ku jira qaybta gargaarka degdega ana waa 31 xagga dhimashadu waa 565 tirada ilaa iyo haatan dadka la talaalayna waxa ay maraysaa 3,604 qof iyadoo caalamka uu walwal ku hayo nooca viruska cusub ee haatan soo shaabaxay ayaa wararku waxa ay tilmaamayaan in 17 xaaladood oo noocaasi cusub oo viruska corona ah laga helay dalkan Finland kaasoo markii ugu horeysay meeshii lagu arkay ay ahayd dalalka Ingiriiska iyo Koonfur Afrika 14 kamid ah sida ay sheegtay THL waxa laga helay baaritaan cusub oo dhanka shaybaarka oo dib loogu sameeyay halka 3 kalena hore loo sheegay taariikhdu markay ahayd 28 bishii December ee sanadkii dhamaaday xaaladahaas oo dhan sida ay sheegtay hay'adda THL waa kuwa la xiriira safar ay dadka laga helay viruska ku tageen dalka Ingiriiska ama wadan kale oo kamid ah dalalka dibadda waxaana safaradaasi ahaayeen dadku ay galeen intii u dhaxaysay 7 ilaa 20 bishii 12aad ee sanadkii dhamaaday 2020 xaaladaas faafista 5 kamid ah waxa laga helay xubnaha qoyska ee dadka viruska uu ku dhacay oo karantiil ku jiray dhammaan xaaladahan cusub ee viruska corona ee Finland laga helay 17 ah waxa laga kala helay gobolada Uusimaa iyo Kymenlaakso waqti hore ayaa la sheegay in Finland laga helay 2 xaaladood oo viruska nooca cusub ee Ingiriiska ka dilaacay iyo 1 xaalad oo ah kan ka dilaacay Koonfur Afrika dadka ka yimaada Ingiriiska iyo Koonfur Afrika marka ay xuduudaha dalka soo galaan ayaa loo soo jeediyaa inay iska qaadaan saamiga baarista ee viruska corona lagu ogaanayo isla markaana ay karantiil galaan haatanna wararkii dibadda wararka ka imanaya dalka Jarmalka ayaa shaaca ka qaaday in xaaladda isbitaalada ee dalkaasi ay meel aad u adag marayso tirada dadka uu ku dhacay viruska corona ee ku jira awgeed iyo tirada dadka laga helayo oo isa soo taraysa
sidaasina waxaa sheegay afhayeen u hadlay dowladda dalkaasi Jarmalka oo la yiraahdo Steven Seibert oo u waramayay wakaaladda wararka ee Reuters. maanta oo Isniina waxaa dalka Jarmalka laga helay 9,847 qof oo hor leh oo qaba viruska corona, taasi oo tirada guud ka dhigaysa 1,775,513 qof oo ah dadka xanuunku ilaa iminka ku dhacay. tirada dhimashada ayaa maanta oo Isniina dalkaasi Jarmalka la sheegay inay gaarayso 302, iyadoo ka dhigaysa tirada guud ee dhimashada tan iyo intii xanuunku ka bilowday dalka Jarmalka 34,574. sida uu sheegay afhayeenka u hadlay dowladda dalkaasi Jarmalka Mr. Steven, waxa uu sheegay in tirada haatan dadka laga helayo ama tirada soo baxaysa maalmahan aan la isku haleyn karin fasaxyada lagu jira ogeed, iyadoo ay dhici karto in dadku aanay intooda badan baaritaanka tagin. dalkaasi Jarmalka waxaa ka jira xadeymo aad u adag laga soo bilaabo 16 bishii Diseembar ee sanadkii tagay, iyadoo albaabada loo laabay iskuulada, dukaamada iyo maqaaxiyaha. ujeedada xadeyntaasi ayaa ahayd in la soo afjaro 10 bishan January, laakiinse sida haatan la cadeynayo amaba ay sheegayaan wararka ka soo baxaya dhinaca dowladda ayaa tirada isa soo taraysa ee dadka laga helayo viruska corona awgeed waxaa dhici karta in ilaa iyo bisha January dhammaadkeeda xadeymahaasi ay sii socdaan. dalka Ruushka oo ka mid ah dalalka aadka ula ildaran xanuunka viruska corona ayaa 24 saac la soo dhaafay 23,351 qof xanuunka laga helay, iyadoo oo 3,591 tiradaasi ka midana ay yihiin dadka ku dhaqan caasimadda Moscow ee dalkaasi Ruushka. ilaa iyo tan iyo intii xanuunku ka bilowday dalkaasi Ruushka ayaa sida ay Reuters sheegayso waxaa tirada guud haatan ay maraysaa 3.3 milyan oo qof. dhimashada ayaa 24 saac la soo dhaafay xanuunkan COVID-19 waxaa Ruushka u dhintay 482, taasi oo tirada guud ka dhigaysa 59,000. dalka Japan wararka ka imanaya ayaa waxa ay shaaca ka qaadayaan in dowladda dalkaasi haatan ay ka baaraan degayso inay xukun degdeg ah ku soo rogto caasimadda dalkaasi Japan ee Tokyo iyo hareeraheeda, maxaa yeelay waxaa sida wararku ay tilmaamayaan isa soo taraya tirada faafista viruska corona ee dadka laga helayo oo aad u soo badanaysa, waxaana sidaasi sheegay wakaaladaha wararka ee Reuters iyo AFP. maanta oo Isniina ayaa magaalada Tokyo kaligeed waxaa laga helay tiro gaaraysa 884 qof oo xanuunka viruska corona qaba, taasi oo ka dhigtay tirada markaasi dadka u baahan in ay mishiinka lagu neefsado lagu rakibo ama ay ku neefsadaan oo xaaladoodu ay halista tahay ilaa 108 qof. maalinkii ka horeysay sanadka cusub kaliya waxaa dalka Japan laga helay 4,520, taasi oo ahayd rikoor cusub aan hore u dhicin. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Japan Mr. Suga weli ma aanu sheegin ama wax faalla ah kama uusan bixin go-aanka ay xukuumaddiisa ka qaadan doonto iyo xukunka degdega ah nooca uu yahay. sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins ee u kuurgasha arrimaha viruska corona, Japan ilaa iyo iminka waxaa laga helay ama tirada dadka laga helay viruska corona ay gaaraysaa 246,000 oo qof, iyada oo sidaasi oo kale in ka badan 3,400na ay xanuunka u dhinteen. sidoo kale Japan waxa uu ka mid yahay dalka laga helay nooca cusub ee viruska corona ee ka dilaacay dalkaasi Ingiriiska oo isagu si ka dhaqso badan sida noocii hore u faafaya. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Japan Mr. Suga waxa uu sheegay inuu rajaynayo in dalka Japan laga bilaabo tallaalka looga hortagayo viruska corona bisha February ee fooda nagu soo haysa, isagoo shaaca ka qaaday in uu ahaan doono dadka ugu horeeya ama kooxaha ugu horeeya ee tallaalkaasi qaadan doona. xaaladda guud ee viruska corona ee caalamka markaan eegno ayaa tirada guud ee adduunweynaha dadka uu ku dhacay haatan 85,577,532 qof ayay marayaan. tirada dhimashaduna waa 1,852,346. qaaradda Yurub markii aynu si gaara u eegno 27,128,145 qof ayuu xanuunku ku dhacay, iyadoo dhimashaduna haatan ay marayso 583,331. dalka Mareykanka ayaa caalamka hogaaminaya, waxaana dalkaasi Mareykanka uu fooda la galay 22 milyan, iyadoo 24 saac la soo dhaafay 194,337 qof laga helay xanuunka
387 ay u dhinteen. dalka Hindiya ayaa kaalinta labaad ku jira 10.4 milyan, Brazilna kaalinta saddexaad 7.7, Ruushka kaalinta afraad 3.2, Faransiiska kaalinta shanaad 2.6. dalka Ingiriiska oo xaaladiisu ay aad u sareyso isla markaana laga yaabo mar dhow in uu Faransiiska kor u dhaafo ayaa waxa haatan u maraya 2.6 milyan, iyadoo xagga dadka laga helayo viruska corona uu aad uga badan yahay dalalka kale oo dhan. 54,000 ayaa laga helay iyo 994 saac la soo dhaafay. Ingiriiska tirada dhimashaduna 454 ayaa maraysa. Turkiga ayaa kaalinta toddobaad ku jira 2.2, Talyaanigana kaalinta sideedaad 2.15, Spain 1.94 ayay weli taagan tahay, inkastoo Spain aysan maalmahan soo gudbin tirada dadka laga helay viruska corona. Jarmalka 1.78 ayuu marayaa kaalinta tobnaad, Colombiana 1.67 kaalinta 11. kaalinta 12 Argentina ayaa ku jirto 1.4 maraysa. kaalinta 13 Mexico 1.44 ayay maraysa. Poland ayaa kaalinta 14 ku jirta oo maraysa 1.32 milyan. Iran kaalinta 15 1.24 milyan ayay maraysa. Koonfur Afrika kaalinta 16 bay ku jirtaa, hase yeeshee waxaa dhici karaysa goordhow in ay Iran iyo Polandba kor u dhaafto, maxaa yeelay tirada dadka laga helayo Koonfur Afrika ayaa aad u badan. 11,859 ayaa dalkaasi 24 saac la soo dhaafay laga helay. dalka Ukraine ayaa kaalinta 17 ku jira oo 1.7 milyan maraya. kaalinta 18 waxaa ku jira dalka Peru oo isagu haatan maraya 1.2 milyan. dalalka 1 milyan waa 18 dal. waxaa ku soo xiga oo ugu soo dhow dalka Holland oo isagu haatan 1 milyan ay wax yar uga harsan tahay, waxaana Holland haatan ay maraya 821,163. tirada dadka laga helay 24 saac la soo dhaafay ayaa aad u badan. 7,398 qof ayaa laga helay viruska corona Holland 24 saac la soo dhaafay, taasi oo ka badan dalalka Peru iyo Ukraine intaba. sidaa darteed waxaa dhici karta goordhow markaasi dalka Holland in uu 1 milyan fooda u la galo. guud ahaanba intaas ayaan kusoo koobaynaa wararkii viruska corona ee Finland iyo caalamka intiisa kale oo aad kala socoteen codka Soomaalida Finland SSM oo goor walba idin soo gudbisa barnaamijka. inta aanan ka bixin waa dardaarankeennii ahaa in aan taxadar weyn qaadano annagoo Ilaahay tala saaranayna, isla markaana aan u hogaansano dhammaanba tala soo jeedinta ka imanaysa dhanka howlwadeenada caafimaadka. sidaas ayaa xanuunka si wadajir uga hortagi karnaa. naftaada daryeel, tan ehelkaaga iyo tan dadkaaga daryeel. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.